Nairobi oo caasimad u ah dalka Kenya Soomaali badan ay degan tahay kana mid ah wadamada dariska ay yihiin Soomaaliya siyaasad ahaanna wax badan ay isaga darsan yihiin waxa maalmihii ugu dambeeyay kulamo ku yeelanayay safiirka dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ninka lagu magacaabo Doni Yamamoto iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya madaxdii uu Yamamoto la kulmay waxa ka mid ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixasiis Laftagareen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni kulamadaas ayaa dhamaantood lagu sheegay in diiradda lagu saarayay arrimo ay ka mid yihiin suurtagalnimada doorasho ka dhacda dalka sanada 2020 ilaa 2021 oo doorashooyin taxanaha ay qabsoomi doonaan waxa sidoo kale lagu sheegay in looga hadlay kulamada arrimaha ammaanka iyo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa maamul goboleedyada qaar iyo dawladda dhexe oo isfahan waa siyaasadeed uu ka dhex jiro Yamamoto ayaa kulanka uu la qaatay madaxda maamul goboleedyada qaybtood waxa uu ku sheegay inay tahay mid ujeedadiisu tahay sidii Soomaaliya ay uga bixi lahayd caqabadaha siyaasadeed amni ee xilligan ka taagan waxaana Yamamoto uu sheegay in 23 bishan ay kulmeen madaxweynaha Puntland sidoo kalena ay ka wada hadleen taageerada Mareykanka ay siiso laamaha ammaanka ee Puntland iyo sidoo kale ahmiyadda doorasho qaran oo dalka laga qabto macadda siyaasadda dhabta ee ka dambaysa in Yamamoto safiirka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya uu kula kulmo Nairobi madaxda maamul goboleedyada qaar isaga oo awooday inuu kula kulmo gudaha dalka waxaana jirta habab badan oo ay u kulmi jireen madaxda iyo safiirada u qaabilsan Soomaaliya dalalka caalamka waxaana ka mid ahayd in safaaradaha qaar ay booqdaan caasimadaha maamul goboleedyada halkaas oo ay kula shiri jireen madaxda waxaana sidoo kale dhici jirtay in Muqdisho oo ah caasimada dalka Soomaaliya ay kulamo ku qaataan balse arrinkan ayaa ah mid shaki badan ay gelinayaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaybtood halka kuwa kalena ay u arkaan inay tahay siyaasad laga baxsan waayay